bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa talaado ay taariikhdu ku beegan tahay 25 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2020 qodobada wararka maanta idin haynana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay guux badan oo ka jira filla Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo 30 cisho kadib ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka xogihii ugu dambeeyay ee madaxtooyada dalka ayaan wararkeena maanta ku soo qaadan doonaa madaxweyne Farmaajo oo Fahad Yaasiin erga ahaan ugu diray madaxweynayaashii hore ee dalka iyo Fahad Yaasiin Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan xasaasi ah Muqdisho ku yeeshay Somaliland oo milkiilaha Astaan TV ku eedeysay inuu la shaqeeyo agaasimaha sirdoonka Soomaaliya faahfaahin ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal beeleed ka dhacay dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo wararkii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday howlgallo karana dagaalamayaasha al-shabaab oo laga fulinayo qaybo kamid ah gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waa hagaag daawadayaal intaas daawateen waxay hayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn iminkan waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaas ka faahfaahsan fadlan haddii ay tahay markaagii kuugu horeysay waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe noo saarto aad inagu soo biirto si aad u hesho xogaha wararka iyo macluumaadka dheeriga ah ee alaaba halkan aan soo gelino idinkuna waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal daawashadiina muuqaalkan aad daawanaysana like inoo saar si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ahba ay u daawadaan marka la soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ku bilaabayaa maanta wararkii ugu dambeeyay guux badan oo ka jira filla Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo oo 30 cisho kadib ku dhawaaqaya ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka wararka inaga soo gaaraya madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi saacadihii la soo dhaafay ay ka jirtay guux aad u fara badan waxaana madaxtooyada dalka laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ilo madax bannaan ayaa waxa ay sheegayaan in saacadaha soo socda la filayo in la magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya kadib 30 cisho madaxweyne Farmaajo uusan ku dhawaaqin ama uusan shaacin ra'iisul wasaarihii bedeli lahaa Xasan Cali Khayre guuxii jiray ayaa waxa ay hadda wararka sheegayaan in la soo gabagabeeyay isla markaana waxa lagu wadaa in madaxweynaha Soomaaliya uu magacaabo shakhsigii bedeli lahaa Xasan Cali Khayre oo 25 July xilka laga xayuubiyay madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu shaaciyo magaca qofka uu xushay xilli ay u buuxsamayso bil inta dalka ra'iisul wasaare la'aan uu yahay wararkii ugu dambeeyay ee sidoo kale ka imaanaya madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo markaasi uu xiriir kala duwan la sameeyay shakhsiyaadka uu doonayo inuu u magacaabo jagada ra'iisul wasaaraha dalka warar aan ku kalsoonaan karnay oo aan ka helnay madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegayaan in madaxweynaha dalka madaxweyne Farmaajo uu isagu doonayo in saacadaha soo aadan uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaaraha iyada oo wada tashi dheer kadib uu haatan markaasi helay shakhsiga uu isleeyahay waa uu qaban karaa xilka ra'iisul wasaaraha dalka mucaaradka Soomaaliya iyo dhammaan saamilayda siyaasadda xitaa bulshada rayidka ah ayaa iyagu si aad uga warsugaya shakhsiga ama qof noocee ah ayaa noqon doona ra'iisul wasaaraha bedeli doona Xasan Cali Khayre wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo ay markaasi ka dhamaatay waqtigii dastuuriga ahaa inkastoo dadka qaar ay ku doodayaan in uusan jirin waqti u cayimaya madaxweynaha Soomaaliya xilliga uu soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha kaasoo ku qoran dastuurka dalka u yaala balse wararka qaar ayaa sheegaya in markaasi qodobkaasi uu yahay qodob hore oo dastuurka hore ugu qornaa balse wax ka bedel lagu sameeyay lama oga shakhsiga uu markaasi soo xulan doono madaxweyne Farmaajo balse waxa la fahamsan yahay in madaxweynaha uu la tashi kala sameynayo magacaabista ra'iisul wasaarihiisa cusub agaasimaha Nisa Fahad Yaasiin oo si aad loogu xanto inay markaasi isku dhow yihiin madaxweyne Farmaajo isla marhaantaana ay ka go'do talada dalka dhinaca kalena madaxweyne Farmaajo ayaa Fahad Yaasiin erga ahaan waxa ugu diray madaxweynayaashii hore ee dalka xilli kulan xasaasi ah ay yeesheen Fahad Yaasiin Xasan Sheekh Maxamuud wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wakiil u diray madaxweynayaashii hore ee dalka si uu bilaabo xiriir ay markaasi la sameeyaan dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Nisa Fahad Yaasiin Xaaji oo si weyn ugu dhow madaxweyne Farmaajo ayaa xiriir la sameeyay madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud waxayna isku waafaqeen inay kulan yeeshaan iyada oo wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in kulankooda uu markaasi ka dhacay hooyga uu degan yahay madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud kulanka Fahad Yaasiin oo wakiil ka ah madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wararku waxay sheegayaan in looga hadlay
xaaladda siyaasadeed ee dalka siiba magacaabidda ra'iisul wasaaraha cusub oo saacadaha soo aadan lagu dhawaaqayo iyo arrimo la xiriira doorashooyinka dalka maadaama mucaaradka ay iyagu markaasi baqdin xoog leh ka qabaan doorashada dalka ka dhacaysa. agaasimaha nisa Fahad Yaasiin ayaa hore ula kulmay madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed xilli ay xiisad weyn dhalisay go'aanka magaalada Kismaayo looga celiyay diyaarad uu la socday Sheekh Shariif, wuxuuna qabanqaabiyey kulan dhex maray madaxweyne Farmaajo kaas oo markaasi lagu qaboojiyey xiisadii labada dhinac, inkastoo markii dambe Farmaajo lagu eedeeyey inuu fulin waayay ballanqaadyadii uu sameeyey. kulankan ay yeesheen agaasimaha nisa iyo weliba sidoo kale ee madasha xisbiyada qaran oo uu markaasi ka socday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay ku soo aadayaan xilli dalka uusan weli lahayn ra'iisul wasaare sharci ah, isla marhaantaana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga sugayo inuu soo magacaabo shakhsiga ee loo magacaabayo ra'iisul wasaaraha dalka kaas oo noqonaya mid ka imaanaya beesha Hawiye, maadaama hadda ra'iisul wasaaraha uu siyahay ka yahay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo isagu markaasi deegaan doorashadiisu ay tahay dhinacaas iyo Somaliland. maamulka Somaliland waxa ay milkiilaha Astaan TV ku eedeeyeen in uu la shaqeeyo sirdoonka Soomaaliya. waxa maxkamadda gobolka Maroodijeex ee Hargeysa markii ugu horeysay la soo taagay milkiilaha Astaan TV Cabdimanaan Yuusuf Maxamed oo ku dhawaad 40 maalmood ku xirnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Somaliland. xeer ilaalinta Somaliland ayaa ku soo oogtay milkiilaha Astaan TV dacwad ku saabsan inuu yahay basaas xiriir la leh agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Fahad Yaasiin iyo inuu ganacsiga u adeegsado si khaldan. waxaa dacwadda iyo qaabka loogu soo oogay Cabdimanaan Yuusuf maxkamadda ka difaacay qareenadiisa oo maxkamadda u sheegay in si khaldan loogu haysto dhibanaha, isla markaana maxkamadda aysan awood u lahayn inay qaado dacwadiisa, waxaana la xiray maxkamadda iyadoo fadhi dambe la isugu soo laaban doono. xariga milkiilaha Astaan TV ayaa fadeexad weyn u soo jiiday maamulka Hargeysa ka taliya ee Somaliland, iyadoo markii hore si afduub ah loo haystay muddo 7 ka badan, kadibna lagu wareejiyay booliiska Hargeysa, iyadoo ganacsadahan lagu haysto inuu si khasab ah u bixiyo saami badan oo shirkadiisa ka mid ah. markaana waxaynu eegaynaa faahfaahino ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal ka dhacay ee qaybo ka mid ah ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. inta la og yahay hal ruux ayaa la sheegay in uu ku geeriyooday, tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal u dhaxeeyay laba beelood oo ka dhacay deegaanka Garasle oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. wararku waxa ay intaas ku darayaan in dhammaan isgaarsiinta deegaanka Garasle ee uu dagaalku ka dhacay ay hawada ka baxday, sidoo kalena uu jiro hub urursi ay wadaan laba maleeshiya beeleed ee dagaalamay. xubno ka tirsan maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay inay ku baxeen deegaanka uu dagaal beeleedka ka socdo, waxaana la filayaa in ciidamo la kala dhex dhigo beelahaasi halkaasi ku dagaalamaya. xaaladda deegaanka Garasle oo ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa mid kacsan, waxaana dagaalka ka dhacay uu yahay mid dhowrkii sano la soo dhaafay soo laabanayay. maamulka Soomaalida Ethiopia ayaa iyagu dhowr jeer isku dayay inay xakameeyaan dagaalada ku soo laabtay qaybo ka mid ah dowlad deegaanka ee Soomaalida Ethiopia, balse way ku guuldareysteen. lama oga sida dadkan loo kala dhexdhexaadin doono, iyada oo saacadihii la soo dhaafan halkaasi laga soo sheegayay inay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ay hubabka isugu urursanayaan beelahaasi walaalaha ah ee halkaasi wada dega. dhinaca kalena rajadii 13 kursi ee gobolka Banaadir ayaa waxay u muuqataa inay meesha ka baxday. xildhibaan Cabdiqaadir Cusable Cali oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka kana mid ah madasha xisbiyada qaran ayaa ka hadlay ballan uu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu uga baxay dadka dega gobolka Banaadir. xildhibaan Cabdiqaadir Cusable ayaa sheegay in Farmaajo uu ballankaasi ka baxay, isla marhaantaana ku soo afmeeray inuu ballantaasi ka baxay magaalada Dhuusamareeb, kaasi oo lagu gaaray go'aamo aan loo dhamayn. Cusable oo ku doodaya in madaxweynaha aysan dhab ka ahayn xuquuqdii uu sheegayay inuu u raadinayo gobolka Banaadir, isla markaana uu ballantii uga baxay shacabka maadaama uu weli saxiix leeyahay 13 kursi ee gobolka Banaadir loo ogolaaday. xildhibaankan oo ka mid ah mudanayaashii sida weyn ugu ololeynayay 13 kursi ee golaha aqalka sare laga siiyay gobolka Banaadir ayaa madaxweynaha ku eedeeyay in uu ka been sheegay ballantaasi. waxa uu xildhibaanku ugu baaqay Farmaajo inuu markaasi ka run sheego ballanqaadkii uu sameeyay dadka dega gobolka Banaadir, kaasi oo ku saleysnaa sidii dadka dega gobolka Banaadir ay u heli lahaayeen
xuquuqdoodii. ugu dambeyntiina dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday howlgallo weyn kuwaas oo laga fulinayo qaybo kamid ah gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyadoo inta badan gobolada dalka ay howlgallo ka dhana al-shabaab ka wadaan ciidanka commandoska danab ayay ciidamada saldhig cusub waxay ka sameysteen magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. taliyaha guutada 16aad commandoska xooga dalka gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in saldhigan ciidanka danab ay ka sameysteen magaalada Jowhar ay ugu talagaleen in lagu dardargeliyo howlgallada al-shabaab looga saarayo gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. ciidanka commandoska waxay xarumo ku leeyihiin Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, haddana Hirshabeelle ayay ka sameysteen. dhowaan waxaa dalka oo dhan laga xoreynaya ama laga xoreyn doona al-shabaab oo dhibaato ku haya shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri taliye Ismaaciil. taliyaha ayaa xusay in ciidanka danab ay howlgallo ka fuliyeen inta u dhaxaysa Jowhar iyo Muqdisho halkaas oo ay dhibaato ku qabaan shacabka iyo gaadiidka labada dhinac isaga kala gooshta. caawnta ku daray in ciidanka cagta mariyeen jidgooyooyin ay ku dhibaateen jireen shacabka al-shabaab halkaasi. waxa uuna sheegay in sidoo kale ay soo saareen miinooyin dhulka lagu aasay. guud ahaan ciidanka xooga dalka ee ku sugan gobolada dalka ayaa waxay wadaan howlgallo ka dhan al-shabaab iyagoo sidoo kale mararka qaar la kulmaya weeraro kala duwan oo uga yimaada dhinacaas al-shabaab. ciidamada huwanta ah ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa iyagu deegaano muhiim ah waxay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab. intaan wararkooda ku kulmi doono waa dhammaanteen isku duubano idin leh sidaas iyo nabadgelyo.